kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah La isla de Patos se va a hacer un saneamiento y exploración con todos los medios aeronavales para contribuir al ejercicio que estamos efectuando en este momento. waa jeneraalada ciidanka waddanka Venezuela oo caawa dejinaya kaartadii dagaalka ee ugu dambeysay ee dalkooda ay ku difaacayaan iyadoo laga cabsi qabo guluf weerar oo Mareykanku uu qaado sidoo kale dayuuradaha dagaalka Venezuela ayaa hawada ku sameynaya roondo iyadoo kuwa Mareykanku ay ku soo dhawaanayaan hawada waddankaasi jawiguna waa sidan dagaalka ayaa qarxi kara xilli kasta iyadoo Trump saacada ka hor uu amray in la xiro dhammaan hawada waddanka Venezuela warbaahinta Mareykanka oo bilowday ka hadalka dalka u baxsan karo madaxweyne Nicolas Maduro haddii lagu qasbo inuu ka tago dalkiisa inkastoo wacd uu ku maray inuu hogaamin doono kacdoon dadweyne oo lagaga hortagaya Mareykanka haddaba waa dalka la filan karo inuu u baxsado madaxweynaha waddanka Venezuela xog ayaan idinkaga haynaa ciidamada Suudaan oo galabtay la wareegay magaalo istiraatiiji ah oo ku taal gobolka Kordofan kadib dagaal faraha looga gubtay oo ay la galeen RSF Israa'iil waxa caawa ka taagan qalqal weyn oo la xiriira diyaarado dagaal oo soo galay hawada waddanka Masar kuwaasi oo ay qaban waayeen raadarada Israa'iil iyo kuwa Mareykanka haddaba dalkee laga leeyahay diyaaradahan mucjisada ah warbixin yaab leh ayaan idinkaga haynaa amuurtan warar ku saabsan Gaza ayaan sidoo kale idin soo gudbinaynaa iyadoo caawa tirada Falastiiniyiinta geeriyootay ay gaartay 70,000 oo qof sheekada ugu dambeysay barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay Adolf Hitler oo doorasho ku guuleystay waa sheeko la yaab leh dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha soo dhawaada markala daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa Suudaan halkaasi oo dagaalo culus ay ka socdaan gobollo kala duwan gaar ahaan gobolka Kordofan iyo sidoo kale gobollada la isku yiraahdo Darfur haddaba wararkii ugu dambeeyay militariga dawladda ayaa lagu soo waramayaa in ay gacanta ku dhigeen deegaanka Kartala ee gobolka koonfurta Kordofan kadib weerar kaga yimid ciidamada RSF iyo kooxaha SPLM ee uu hogaaminayo Abdulcasiis Al-Hilo guushan ayaa timid iyadoo dagaalka uu ka sii holcayo gobolka magaalada Babanusa ee gobolka galbeed ee Kordofan ayaa wali wajahaysa duqeybo culus oo RSF ay ku beegsanayso xarunta guutada 22aad ee ciidamada dawladda iyagoo adeegsanaya madaafiic iyo diyaaradaha droniska ee ismiidaamiya ila ku sugan gudaha magaalada ayaa sheegay in ciidamada dawladdu ay ku guuleysteen inay iska difaacaan weerarka isla markaasna ay ka hortageen in RSF gudaha u soo gasho magaalada dhinaca kale RSF ayaa ciidamo cusub u daadgureynaysa dhanka Samima iyo Abu Khawd ee galbeedka magaalada Al Ubayd si ay ula wareegaan deegaanadii dhawaan ciidamada Suudaan ay ka qabsadeen iyadoo xiisadan kor u sii kacayso ayaa dhinaca kalena arrimaha dhanka diblomaasiyadda waxa ugu dambeeyay maanta codayn ka dhacday baarlamaanka midowga Yurub cod loo qaaday xaaladda dalka Suudaan ayaa 503 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka waxay u codeeyeen qaraar si adag u cambaaraynaya xadgudubyada RSF halka 32 ay ka soo horjeesteen qaraarkaasi 52 ayaa ka aamusay dhanka waqooyiga Darfur hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF Médecins Sans Frontières ayaa sheegtay in xaaladdu weli halis ay tahay tani markii RSF ay la wareegtay magaalada Al-Fashir 26 bishii Oktoobar ee aynu ka soo gudubnay in ka badan 10,000 oo qof ayaa ka cararay xasuuqii dhacay iyadoo weli ay jiraan 260,000 oo qof oo magaalada ku sugnaa dhamaadkii bishii Agost sida ay sheegayso qaramada midoobay
war kale oo arrimahan ay la xiriira ciidamada RSF ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dileen wariye Taj al-Sir Maxamed Suleymaan oo ahaa agaasimihii wakaaladda wararka Suudaan ee magaceeda loo soo gaabiyo Suna isaga iyo walaalkiisa gurigooda oo ku yaal xaafadda Darca ee magaalada Al-Fashir ee caasimadda waqooyiga Darfur wasiirka warfaafinta Suudaan Khalid al-Isar ayaa sheegay in RSF ay xireen wariyaal kale oo ka shaqeeya warbaahinno kala duwan kuwaasi oo laga qaaday Al-Fashir loona wareejiyay magaalada Niyala waxaana ugu baaqay hay'adaha caalamiga ah ee difaaca saxafiyiinta inay qaadaan tillaabooyin ay ku xaqiijinayaan badbaadada saxafiyiintaasi وهاجاج وحي ورا arrimahan ay ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ama intaynu barnaamijka ku jirno ayaan idin soo gudbinaynaa bal markan aynu eegno xiisadda dhanka Mareykanka iyo Venezuela caawa dhiilo colaadeed ayaa ka taagan biyaha Caribbean-ka iyadoo laga cabsi qabo Mareykanku duulaan inuu ku qaado waddanka Venezuela saacadihii aynu ka soo gudubnay sidaad kula socoteen barnaamijka wararka caawa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amray in la xiro gebi ahaanba hawada waddankaasi Venezuela iyadoo aysan jirin wax diyaarada oo nuuxsanaysa oo maraysa hawada waddanka Venezuela haddaba saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada lagu faafiyey generaalada hogaaminaya ciidamada waddanka Venezuela oo jeexaya kaartadii dagaalka aynu daawana muuqaalkan kuwaasi oo doonaya inay difaacaan waddankooda La isla de Patos se va a hacer un saneamiento y exploración con todos los medios aeronavales para contribuir al ejercicio que estamos efectuando en este momento en el adiestramiento y la corrección de todo. watahay generaalada ayaa wacd ku maray inay iska difaaci doonaan Mareykanka waxaana lagu soo warramayaa buuraha ku hareeraysan magaalada caasimadda ee Caracas in la dhigay nidaamka difaaca gantaalada dhinaca kale dayuuradaha dagaalka ee Saakhoy ee Ruushka uu siiyey Venezuela ayaa lagu arkay hawada magaalada Caracas aynu daawana muuqaalkan oo goor dhaweyta baraha bulshada la soo dhigay وهاجاج haddaba iyadoo xaaladdu heerkaasi ay marayso ayaa warbaahinta waddanka Mareykanka waxay bilowday caawa warka ku saabsan madaxweyne Maduro haddii ay noqoto inuu ka baxsado waddankiisa meesha uu aadi doono aynu eegno wararkii ugu dambeeyay amurahani warbixino laga helay maamulka Mareykanka ayaa sheegaya in madaxweyne Nicolas Maduro uu u arko Turkiga meesha ugu macquulsan ee u baxsan karo haddii uu ka tago Caracas maadaama cadaadiska Mareykanka uu sii kordhayo maamulka Donald Trump ayaa weli ku riixaya qorshahan inuu noqon karo bixitaan fudud ama mid adag si xilka looga tuuro madaxweyne Maduro oo doorashadii 2024 la sheegay inuu ku guuleystay doorashadaasi natiijadeeda waxaa qaadacay Washington iyo in ka badan 50 dal kuwaasi oo ku tilmaamay mid musuqmaasuqa waa si hadalka loo dhigay xiriirka siyaasadeed iyo kan shakhsiga u dhaxeeya Maduro iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wanaagsan iyadoo Erdogan uu si degdeg ah ugu hambaliyay markii lagu dhawaaqay in Maduro ku guuleystay doorashadii dhacday sanadkii aynu ka soo gudubnay iyadoo Turkigana taas uu ku tilmaamay inay ahay doorashadii ugu macquulsanayd labada dal waxay iska kaashadeen heshiisyo ganacsi iyo kuwa istiraatiiji waxaana Maduro marar badan uu ugu yeeray Erdogan walaal ila xogogaal ah ayaa tilmaamaya in Turkigu uu yahay meel Maduro isku aamini karo maadaama ay wanaagsan yihiin xiriirka Erdogan iyo isaga iyo sidoo kale xiriirka Erdogan iyo Trump taasi oo suurto gelinaysa heshiis damaanad qaadaya inuusan Mareykanka loo gacan gelin iyadoo lagu eedeynayo ka ganacsiga daroogada musuqmaasuq iyo dambiye kale waa sida Washington ay ku andacoonayso inkastoo Maduro taageero uu ka helayo Ruushka Iran iyo Cuba qobrada waxay leeyihiin dalalkaasi ma ahan kuwa aamin oo isku aamini karo Maduro Turkigu wuxuu ku jira shabakad dhaqaale oo dahabka ka soo saarta Venezuela isla markaasna Ankara waxay arintan u arki kartaa maalgelin Maduro fursad u siin karta in markaasi waddankeeda u yimaado taasi oo xoojin karta gorgortanka dhanka diblomaasiyadda ee Turkiga wahagaag haddaba marka laga tago sheegashadan ka soo baxaysa ee warbaahinta waddanka Mareykanka madaxweyne Maduro 48 saac ka hor meel fagaara ayuu yimid isagoo labisan toote gacantana ku sita seef wuxuuna wacad ku maray in uu dagaalami doono dadka qaarkood gaar ahaan qubarada waxay leeyihiin
arrintan waa dagaal xagga maskaxda ah ee ninkan ma aha nin meel u socda bacdamaa toddobaadkii hore xitaa ay soo baxeen warar sheegaya in laga yaabo inuu Colombia u baxsado dowladda Colombia arrintaasi waa ay beenisay dad badan marka waxay leeyihiin qorshaha Mareykanku wuxuu ugu talagalayaa in jahwareer ka abuuro iyo is-aamini darro generaalada hogaaminaya ciidanka iyo madaxweyne Maduro si markaas ay ugu qasbaan inuu iscasilo ama xukunka uu ka dego laakiin ilaa hadda waxa muuqata Venezuela cagaha dhulka inay ku hayso madaxweyne Maduro-na uu la soo taagan yahay waan isdifaaci doonaa dad badan waxay su'aal gelinayaan maxay tahay sababta Mareykanka uu u faragelinaya wadankan waa mid kamid ah wadamada ugu hodansan adduunka waxa lagu tirayaa wadanka shidaalka ugu badan adduunka uu ku jiro arrintaas waxa kaloo sii dheer macdan fara badan oo wadankan uu leeyahay hadda ciidanka Mareykanka waxay ku sugan yihiin meelo aad ugu dhow wadankaasi diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka F-35 ayaa waxa la geeyay jasiiradaha lagu magacaabo Tobago and Trinidad iyo sidoo kale wadanka Puerto Rico markabka dagaal ee Mareykanku uu leeyahay USS Gerald Ford ayaa isaguna xeebaha Caribbean-ka kaabiga ku haya suurtagal waxa dagaalku inuu qarxi karo xilli kasta wixii waraha ee soo kordha intaynu barnaamijka ku jirno ama barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii Allah idmo wahagaag waxaan u gudbaynaa gordhow warar la xiriira Mareykanka Gaza Israa'iil waxa ka taagan jahwareer iyo qalqal la xiriira diyaarado dagaal oo soo galay hawada wadanka Masar kuwaasi oo ay qaban waayeen ama ay arki waayeen raadarada lagu sheegay inay kuwa casriga ah ee Israa'iil iyo Mareykanka haddaba wadankee laga leeyahay diyaaradahan mucjisada ah sheekadaas iyo waliba Adolf Hitler oo ku guuleystay doorasho ka dhacday Afrika waa arrin la yaab leh intaan u gudbin sheekooyinkaas aynu ku hakanno qadar xayisiina soo dhawaada markala daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah warar faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirnaba HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka wahagaag bal markan aynu eegno warar la xiriira Mareykanka Gaza iyadoo xabadujin ay jirto laakiin dhinaca kale Israa'iil waxay sii wadaa weerarada lagu tilmaamay xadgudub inay ku yihiin rasaas joojinta dhinaca kale kooxaha gurmadka ayaa wali waxay ka soo saarayaan dhismayaasha burburay iyo guryaha Israa'iil ay burburisay meydadka dadka halkaas ku geeriyooday lafahoodii haddaba war goordhaweyta ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Mareykanka Gaza ayaa lagu sheegay caawa tirada dadka Falastiiniyiinta ee dhintay tan iyo 7 Oktoobar 2023 markii Israa'iil dagaalka ay bilowday dadkaasi tiradu inay marayso 70,000 waxaana lagu soo warramayaa in la sheegayo tiradaasi inay imika gaartay 70,100 yani 70,000 bay ka sare martay dadkaasina waxaa la sheegayaa inay ugu dambeeyeen 2 qof oo maanta la dilay waxaana la sheegayaa meydad fara badan laga soo saaray dhismayaasha dhulka hoostiisa lafahoodii dadkaasina waxay leeyahay dhibaatada jirta waxay tahay lama garan karo haybtooda sababtoo ah nidaamyadii DNA-ga ama dheecaanka hidisidaha ee lagu ogaan lahaa haybta dadkaasi lama hayo war kale oo arrimahan ay la xiriira wasiirka horumarinta caalamiga ah ee dalka Norway Asmund Akrust ayaa u sheegay telefishinka Al Jazeera goordhaweyto in loo baahan yahay in cadaadis la saaro Israa'iil si ay u joojiso dhibaatada ay ku hayso dadka reer Falastiin hadalkan ayaa imaanaya iyadoo la xusayay maanta maalinta caalamiga ah ee mideynta shacabka Falastiin oo ah sanad kasta maalin adduunka oo idil laga taageero dadka Falastiiniyiinta loona aqoonsaday 29 November maalintaasi arrimahan sidoo kale waxaa goordhaweyta ka hadlay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu sheegay in Israa'iil ku xadgudbayso xabajoojinta iyadoo adeegsanaysa marmarsiyo aan ahayn buu yiri mid sax ah wuxuu sidoo kale sheegay in Xamaas ay qaadatay hab deganaan leh si ay u ilaaliso xabajoojinta inkastoo ay jiraan buu yiri xaalado adag Erdogan intaasi ku daray in baraha digitalka iyo warbaahinta inta badan lagu arkayo olole marin habaabina oo Israa'iil ay wado kuwaasi oo la doonayo in markaasi lagu sameeyo qiil Israa'iil ku sii wadaysa rabshadaha waxa kale oo uu sheegay in xitaa gudaha dalka Turkiga ay ka jiraan dad isku dayaya inay marin habaabiyaan mowqifka Turkiga ee ku aadan
qadiyadda Falastiin sheekadii diyaaradihii la yaabka lahaa oo inoo soo socotaay arrimahan intayna ka bixin gaar ahaan xagga daanta galbeed militariga Israa'iil ayaa goor dhaweyd waxay ku dhawaaqeen hawlgalladooda weerar ee waqooyiga daanta galbeed inay sii socon doonaan iyagoo ku andacoonaya inay doonayaan inay burburiyaan dhismayaal ku yaala magaalada Jiniin sabab la xiriira baahi hawlgal waxa kaloo la sheegay in ciidamo ka tirsan unuga commandoska gaar ahaan guutada baarashuutka ay heleen qaraxyo iyo hub inta ay ku guda jireen hawlgal ka dhacay magaalada Jiniin ee daanta galbeed ee la haysto waa hagaag sheekadii Adolf Hitler oo doorasho ka dhacday Afrika ku guuleystay oo inoo soo socotaay bal markan ay eegno arrin la yaab leh sheekadan waxaa la sheegayaa inay ka dhalisay gudaha Israa'iil hadalhayn aad u yaab badan diyaarado dagaal oo Shiinaha uu leeyahay ayaa waxaa la sheegayaa inay galeen hawada waddanka Masar laakiin arrintaasi waxay dhalisay baa yiri gudaha Israa'iil heegankii ugu sareeyay inuu ka dhacay sababtu maxay tahay diyaaradahan markii ay soo galiyeen hawada waddanka Masar raadaarada Israa'iil iyo kuwa Mareykanka ayaan ogaanin dhaqdhaqaaqa diyuuradahaasi wargeyska Maarif ee ka soo baxay Israa'iil oo warbixintan aynu ka soo xignay ayaa waxa uu sheegayaa in dhacdadan ay horseeday doodo cusub oo Israa'iil gudaheeda ka jira kuwaasi oo lagu qiimeynayo saameynta arrintan ay ku yeelan karto aragtida Israa'iil ku saabsan awoodda xagga cirka ee gobolka wargeysku wuxuu tilmaamay in Israa'iil ay ka cabsi qabto dhismaha awoodda military ee Masar gaar ahaan dhinaca hawada warbixino laga soo xigtay saraakiil ayaa waxay muujinayaan in Masar sanadihii la soo dhaafay ay raadinaysay fursad ay ku iibsan karto diyaaradaha jiilka shanaad ee Ruushka iyo Shiinuhu ay farsameeyaan sidoo kale Kuuriyada Koonfureed iyo Turkiga ayay ka doonaysaa diyaarado kuwaasi oo la sheegayo in xitaa qorshaha ay ka mid tahay in Turkiga iyo Masar ay iska kaashadaan qorshe diyaaradahaasi Turkiga uu farsameeyo ee jiilka shanaad lagu farsameynayo gudaha waddanka Masar tan iyo 2015 Masar waxay dardar gelisay dib u habeyn ballaaran oo xagga ciidanka oo ay ku jiraan tayeynta unugyada horumarinta nidaamyada taliska ballaarinta awoodaha hawlgallada ee Siinay iibsashada hubka difaaca hawada sare ee Mareykanka Ruushka iyo Shiinaha ciidamada badda ayaa sidoo kale xoojiyay oo kordhiyay awoodooda gaar ahaan maraakiibta badda quusta kuwa gantaalada rida iyo maraakiib kale oo casri ah sida warbixintu ay sheegayso Masar waxay doonaysaa inay dhisto awood ka hortag madax bannaan oo u suurtagelin kara inay si xor ah u qaadi karto tillaabooyin iyadoo xaaladda gobolkana ay tahay mid kacsan wargeysku waxa intaasi uu ku daray in Masar dhawaan ay heshay 3 dayuuradood oo ah nooca Rafale ee Faransiiska uu farsameeyo kuwaasi oo qayb ka ah heshiis 30 diyaaradahaasi ah la sheegayo in Faransiiska uu ka iibinayo Masar 18 ayaa horeba loogu wareejiyay 12 kale ayaa dhiman sida wararku ay sheegayaan Masar horey waxay u ballan qaaday in ay xoojin doonto nidaamka gantaalada hawada ee horumarsan waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa dhawaan waxay la saxiixatay shirkadda Boeing heshiis ku kacaya 4.7 bilyan oo dollar oo lagu soo saarayo diyaaradaha qomaatiga u kaca ee helikobtarada ee Apache loo yaqaan diyaaradahaasi oo Masar la sheegayo in qayb ka mid ah Mareykanku uu siin doono warbixin faahfaahsan oo sheekadan ku aadan barnaamij gaar ah oo barnaamijkan ku xiga ayaan idinkugu soo gudbin doonaa sheekadaasi iyo waliba sheekooyin kale waayahay haatan waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay Adolf Hitler markaad maqasho waxa soo xasuusanaysaa hogaamiyihii Naazigii Jarmalka oo dagaalkii labadii adduunka la waayay raqiya ruux meel uu ku dambeeyo laakiin ka waran hadii lagu yiraahdo Adolf Hitler ayaa 2025 wuxuu ku guuleystay doorasho ka dhacday Afrika laakiin ninkii Jarmalka ma ahan ninkani waa nin u dhashay waddanka Namibia haddaba aynu eegna sheekadan xiisaha leh ee la yaab kale Adolf Hitler Onana wuxuu u dhaqaaqay arrimaha siyaasadda waddanka Namibia wuxuu sheegay in ugu dambeyn uu ku guuleystay horta marka ugu horeysa magaciisa inuu bedelo muddo dheer ayaa ninkani culays wuxuu ka qabay magacan oo ay u bixiyeen waalidkiis ninkan imika waa 60 jir yaraantiisii isagoo ka tirsanaa waalidkiisa ka tirsanayeen xisbiga la oran jiray Sawabo ee u halgamay xorriyadda waddanka Namibia ayaa waxay go'aansadeen in ninkan wiilkooda markuu dhashay weeyaane ay u bixiyaan magaca Adolf Hitler sababtu maxay tahay waan ka warqabnaa waddanka Namibia Jarmalka guumaysan jiray marka siyaasadda Jarmalkana saameyn bay ku leedahay waddankaas waalidkii marka jacayl u qabeen ninkaasi
ayay wiilkoodii uga magac dareen laakiin ninkan dhibaato badan ayuu ku qabay magaciisa oo xitaa mararka qaarkood safaradii ayuu geli waayey baasboorka waxa ugu qoran Adolf Hitler oo nacna cidlo markii aragtay ka carari jirtay ninkan dhowr jeer buu markaa siyaasadda galay laakiin wuxuu damcay inuu bedelo magacii waa u suurtageli waayey adigu ugu dambeyntii 26 bisha November ayaa markaa la soo doortay laakiin haddana wuxuu ku guuleystay sidoo kale in magac intuu iska bedelo magaciisii caadiga ahaa ee wadankaasi magacyada ka jira uu la baxo ninkan wuxuu dhashay 1960 walow fikir uusan ka haysan yaraantiisii Adolf Hitler laakiin haddana waxay noqotay arrin waalidkiis magacaasi ay u dooreen sheekada marka sida ay qorayso jariirada la Parisian waxay noqotay sheeko la yaab leh oo soo jiidatay xitaa gudaha wadanka Jarmalka iyo wadanka Naabibiya warbaahinta markii la yiri Adolf Hitler ayaa doorasho ka dhacday Afrika ku guuleystay laakiin Adolf Hitler kii damahaki وهجد انت ayaan kusoo gabagabeynaya caawa barnaamijka qobanaha ana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu soo gudbino hadii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horeyba aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo